السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إذن سلامي لما نقيرت سترنتهين halkaad igala socota waa jiralka ladan cabdo dhegeystow waxaan rajeynayaa inaad jiralka subscribe like share doonto insha allah. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan san aniga wuu caafimaad qabaa alxamdulilah. soo dhawaada walaalahayga kan xanuunsan allah caafiyo, midka caafimaadka qaba allah u zaa'idiyo, kanan awlaad haysan awlaad baari allah siiyo, midka awlaadka haystan awlaadiisa allah u barakeeyo, kanan guurka haysan guur xalaal allah siiyo, midka guurka haystan guurkiisa allah u barakeeyo. waalidiinteena abka ab meeshaan ka farcanay allah subxaanahu watacaala ha u dambi dhaafo dhammaantood oo jannatul firdaws ala ha geeyo insha allah. walaalaheenni falastiin dhib ayaa haysto, ilaahay subxaanahu watacaala ha ka kor qaado. weliba hadda xabadii waxaa loogu diray gaajo, ilaahay subxaanahu watacaala culeyska ha ka kor qaado, culeyska ha ka kor qaado ilaahay subxaanahu watacaala. u duceeya walaalihiina insha allah. muslimiinta dhammaan waa walaalo, waxaan rajeynayaa inaad u ducin doontaan insha allah. waxaan rabaa inaan idinla wadaago maxaadiro qiimaheeda wadato. kusoo dhawaada, ha noqon baqiil, la wadaag walaalaha kale insha allah. hal iyo laba haddii aad gaarsiiso waxay la mid tahay adigoo ajirka ayaad la qaybsanaysaa insha allah. kusoo dhawaada, kuna salli xabiibkaaga maxamed sala allahu calayhi wasalam. maalintaada adigoo ku sallig nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyaysan kaa dhammaan, adigoon istiqfaarsan iyaysan kaa dhammaan. allah subxaanahu watacaala aan u wada noqono dhammaanteena. sallu cala alxabiib, allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed. kusoo dhawaada muxaadaradeeni siina faafiyo insha allah. waxaan idinka tegay tani kulanta dambe, wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullah. muxaadarada ayaan idin soo fasixi doonaa insha allah. filsan maxamuud baa su-aashan hargeysa ka soo qorta. waxay leedahay nin baanu ku ballannay guur, aadna wii dhaariyey 8 sannadood buu sidaa igu warwareejinayay kolba inuu i guursanayo. markii dambe waa ka baxay, anna waan ka baxay. miyaan dembi leeyahay? 2 qof inay 8 sano iska daba wareegaan iyagoon xaas isu ahayn waa nasiib darro weyn. waa nin iyo ruux dumara oo kale ajnabiya uu 8 sano isku warwareegay. salmo booramay ka soo qorto waxa ay leedahay aniga iyo ninkaygu waa isla fahmi laanah, dab iyo dhagaxun baan isku noqon. laydhaa bisada ayaan gaari jiirsiiyey, dembi miyaan ku leeyahay? rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa diiday bisada in la dilo, bal wuxuu sheegay in gabadhi ay ku naar gashay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalam. amaa bacdu, su-aashan waxaa soo qoray saamiye gabadha la ydhaha, faransiiskay ka soo qortay. waxay leedahay guri khamri lagu iibin jiray oo hooyaday ay lahayd waxay ku qortay, aabbahay eedaday baa lahayd oo waxay ku qortay aabbahay. marka maadaamaan khamri laga iibin laakiin khamri lagu iibin jiray, ma dhaxli karnaa oo aabbahay ma ka dhaxli karnaa? jawaabtu waxa weeye haa. waayo khamrigii lagu iibinayay kor haddii laga saaro laga daayay, laakiin guriga asalkiisu aanu xaaraan ka dhisnayn oonu ka soo jeedin, waa dhaxli kartaanoo xalaal weeye. way kala duwan yihiin dee markuu asalku xaaraan ka soo jeeday iyo marka xaaraan lagu dhex iibinaya. ila xaaraantii lagu dhex iibinaya waa la dhaafinayaa. su-aashan kale waxaa soo qortay nuuro maxamed, qadar bay ka soo qortay. waxay leedahay wadankan aan joogo meelahan dumarka lagu qurxiye koonfurada iyo saalonada iyo laydhaa, dumar gaalaabaa wax ku qurxiya oo jooga. dumarkan muslimaadka ah ay qurxinayn cawradooda ma arki karaa? madaxa, qoorta, gacmaha, cagaha, cawradan hoose ee intaan ahayn ma ka arki karaa? jawaabtu waxa wey culimadu waxay u badayin maya, kama arki karaan bay u badayin. oo waxay la mid tahay ninkii ajnabiga ahaa oo kale. waayo waxa ay u sifayn kartaa, qof gaalay u sifayn kartaa, way u sawiri kartaa, xataa waanay u sawiri kartaa, waanay u sifayn kartaa, markaasay kusoo hogaamin kartaa. waayo qof aamina maaha. sidaa daraaddeed gabadha muslimadda waxa fiican inay ku dadaasho cid aamina. ilaa cawradu waa wixii u qaalisanaa,
cawradeedana qofkani waa qiimaheedii iyo wixii u qaalisanaa marka inay qarsataa waa muhiim qof muslim ahoo aamina ay ula tagto qowlkaynu qaadanaynaa waa kaa hoodaa waxay kasoo qortay Sweden waxay leedahay dee caruur baan leeyahay wiilal iyo gabdhaba dahabkayga gabdhaha uma siin karaa haddaan dee gabdhuha isku qurxiyaan ay qaataan mise inamadana waa inaan wax ka siiyaa jawaabtu waxa weeye nabigaa wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada waalidkiiow oo caruurtiina u cadaalad sameeya marka haddaad wax siinayso hablaha dee wiilashana wax sii haddii kale ka wada daah waxay keenaysaa cuqdad waa waxyaabaha had iyo jeer keena inay caruurtu colloobaan ama waalidkaba ay nacaan sida fiicani waa sidaa filsan maxamuud baa su-aashan hargeysa kasoo qortay waxay leedahay nin baanu ku ballanay guur aadna wii dhaariyey 8 sannadood buu sidaa igu warwareejinayay kolba inuu guursanayo markii dambe waa ka baxay anna waan ka baxay miyaan dembi laaya demee mar haddii isagiiba ka baxay adigii dembi ma lihi qofkuna marka uu wacadka noocaasa galo hadduu ka baxayo intaanu meher dhicin wuu ka bixi karaa laakiin waa inuu qofkii kala raali geliyaa lugoynina waxaana xusid mudan 2 qof inay 8 sano iska daba wareegaan iyagoon xaas isu ahayn waa nasiib darro weyn waa nin iyo ruux dumara oo kale ajnabiya oo 8 sano isku warwareegayay intay isku dambaabeen hadday hadal tahay iyo hadday arag tahay iyo haddii laga yaabo inay sii dhaafeenba waxalla waxay camal sameynayeen taasaa kharibtay ilaa xaaraan bay ku jiraan marka guurka 2 qof way ka wada hadli karaan way sarki karaan laakiin waa muddo aan badnayn arrinta aad loogu baraarugo ridwaan cabdi xarshin buu kasoo qoro waxa uu leeyahay nabi shucayb waxa loo diray asxaabul ayka mise reer Madian ma labadu waa isku mid bay leeyihiin culimada qaarkood oo labadaba waa loo diray ama hadday kala laba ahaayeen isagun baa loo diray labadaba aayadaha marka la eego waxay u taagan yihiin shucayb in loo diray labada qolaba khadar maxamed gabiile buu kasoo qoray waxa uu leeyahay bahashan la ilaa bisada ayaan gaari jiirsiiyey dambi miyaan ku leeyahay haddaanad ogaan u jiirsiinin maya haddii laakiin ogaanaad u jirsiisay dee waa xayawaankii ood ku ciyaartay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa diiday bisada in la dilo bal wuxuu sheegay in lagu gabadhi ay ku naar gashay bisaday dishay oo intay meel ku xidhay ayay ilaa intay gaajo u dhimanaysay halkaa ku haysay may daynin si ay isaga qaraab tagto waxna may siinin naar bay ku gashay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xayawaanka in lagu ciyaaro islaamkeenu ma ogola al-ixsaan fi kulli shay wax walba waa lagu samafalayaa oo samafalku bani aadamka qura loo samafalay maayo xayawaanka loo samafalayaa deegaanka iyo dalkana waa loo samafalayaa marka dadkaad iyo jeer xayawaanka ku ciyaara waa dambiilayaan cabdi yuusuf mudug buu kasoo qoray gaalkacayo waxa uu leeyahay qof baa nabar igu dhuftay waa la ii xaqay macnaheedu waxa weeye waxaa la ii sheegay inta geelahan ku leeyay qofka ah markii la qiimeeyey waan iska cafiyey laakiin ehelkaygii baa waxay leeyihin maxaad u cafiday marka maxaa yeelaa waxaad yeelaysaa cafiskaagaasaad ku adkaysanaysa ilaahay baa wuxu uhi wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaad cafidaan ayaa alla ka cabsiga u dhow inaad qofka waxaagii ka qaadato xaq baad u leedahay laakiin cafiskaa kasii qiimo badan buu ilahay subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahda cafiskuna cisi buu keenaa dicifnimo ma keeno sida dadka qaarkood aaminsan yihin xoolaha halkaa laga xaqayna kol hadaad miyir qabta adigaa leh marka inaad qaadatiy inaad cafido labadabaada xaqu leh cidi kuguma qabsan karta hadaad cafiday cisina waad ku helaysaa waxyaabaha la sadaqaysanayana dhiigaa ka mid a inaad sadaqaysato wixii laguu geystay jirkaaga iyo xoolahaaga intaba sharaf baad ku helaysaa
salma boora may ka soo qorto waxa ay leedahay aniga iyo ninkaygu waa isla fahmi laana dab iyo dhagax xun baan isku noqono waa isku qarxaynaa maxaa xala de xalku wuxuu noqonayaa sidan baa nolosha ku bilowdeen inaa horta daraasaysaan mise waxani waa wax soo biiray marka hore waxaa la doonayaa labada qof ilaa waa zawj waa lamaana inay iskabaan inay isdabeecad fahmaan oo midibaka kale uu dabeecadiisa fahmo salafkeeni iyo saalixiinteeni mid ka mid a baa xaaskiisa wuxuu ku lahaa heblaayoy anigu markaan xanaaqa adigu i deji adigu markaad xanaaqdan anaa ku dejin doona markaa aan iska ilaalina buu leeyahy ficiltanka iyo israad gurka aan iska ilaalino saasay noloshu ku wanaagsan tahay markaa haddii wax idinku soo biiray uu yahay waxaa laga yaabaa in dee ama dad xaasidiin idin dhex gale oona isku kiin direen ama khuraafaad kale uu jiro ee qolada cilaajka u taga almuhim marka arrinkaa daraasaysaan waxaa la idinka sugayaa wada socod fiican iyo kala tag fiican fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan qur-aanku wuxuu ina barayaa wada joog wanaagsan ama kala tag fiican labadaa miduun in lagu noolaado ayaa qur-aanku ina farayaa cadibaad looma baahna ninku gabadha uu cadibo ama iyadu ninka ay cadibto oo mid waliba ka kale uu ka dhigan yahay mid xabsi ugu jiroo kale sacaada guurka laga helaa sacaada raaxa markaa sacaadada hadday meesha ka baxdo xabsi iyo ciqaab iyo cadaab lagu jiro ehelnimadii iyo islaamnimadiiba waa la isku seegaya sidaa qur-aanku inoo baray waxaa lagu dadaalayaa wanaag in lagu wada joogo haddii wanaagaasi suuroobi waayana kala tag fiican buu qur-aanku ina baraya ilaahay baan ka baraya ehelka iyo ooriyaha iyo odayaasha iyo aqaladaba allah inoo hagaajiyo hainoo barakeeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته